الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين walaalyaal maanta waxaan qaadanaynaa cashirkeena labaad oo ku saabsanaan doona sida ugu fudud ee daatadaada u dhaqaaleyn karto in badan haddii ay ku dhibtay daatadaada oo ay si fudud u dhamaatay adigoon ugu talagelin. Haddaba sidee ayaan u dhaqaaleyn karnaa si fudud adigoon wax program la soo degin? Waayadii hore waxaa la isticmaali jiray in program detail la dhaho oo shirkadda Google soo saarto ay dadku la soo degaan Play Store la soo degaan. Balse iminka waa laga maarmay waana laga horumaray. Kaliya waxaad tagaysaa setting markaad tagtid waxaad taabanaysaa connection markaad ku dhufato waxaad tagaysaa data usage meesha ay ku qoran tahay. Data usage markaad tagto halkaas marka hore way afgareysan tahay aniga way on gareysnayd baad siinaysaa markaad siiso waad ka noqonaysaa waxaad tagaysaa billing cycle and data wearing waad ku dhufanaysaa waxaad taabanaysaa sidan bay marka hore u xidhan tahay data wearing and data limit. Data wearing 200 GB data wearing kan baa muhiim ah. Waxaad taabanaysaa MB baad halkaa ka dhigaysaa GB-ga MB baad ka dhigaysaa waa limit bay leedahay. Waxaad oranaysaa maalinta dhan 12 saacadood waxaan isticmaalayaa 10 MB ayaad isticmaalaysaa. Haddaba data saving waxay qabataa data saving waxay tartaa in programka aad isticmaalayso mooyaane aanad program kale lacagta daatadaada ah aanu cunin. Tusaale ahaan dad YouTube ku jirto, Snapchat-ka, Facebook-ga, Instagram-ka, WhatsApp-ka, email-da iyo program kale oo internet lagu isticmaalo toona in aanu lacagtaada cunin kaad ku jirto mooyaane marba kaad gasho mooyaane isticmaalaysid mooyaane in aan mid kale lacagtaada cunin. Insha Allah waxaan rajeynayaa walaalayaal inaan idiin faa'iideeyay idinkana